هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ صلاة هبينك اللي تكدو إذا وحينو أركينا إن دوني ده اللي بدله علايس كأيلا ده هاي وحا كافو ضايدين كرا وحا كافو ضايدين كرا إيه أبوري كرين الدوني ده تن dhibta kaaga imanayso dhama ay fududaataa waa xidhiidhkaada la leeday inta uu xoogan yahay waa salaad inta aad tukanayso sida awgeed ayaa nabiga markay dhibtu ku adkaatay haddana waxaa la faray tasbiixdiiyo salaada inuu badiyo waa markay dhibtu ku adkaatay markii la yidhi fasdac bima tu'mar waarid can ilmushrik ku dhawaaq baa ilaahay yidhi wixii lagu faray qoladan gaaleed ee ilaahay dafirtay iyo kuwan mustahzi'iinta iyo waxaasoo dhan kaaga filan ilaahay wuxuu leeyahay walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun waa ognay baa ilaahay yidhi in laabtaadu inay cidhiidhiyami doonto waxay kugula hadlayaan dhib baa kaala kulmi doonta laakiin maxaa xala fasabbix bixamdi rabbika وكن من الساجدين بالغوي تصبيح يتحميد لك علي انت سجودنا كم النغو اذا مشاكل الدنيا عليس كذا هدات ربطين اللودو هدات ربطين كاد القادمته الباب كالرب قرع بالليل وحكى لو انها قبرني ذكري سبدي صلاتي سبدي عبادة بدي سوقت بقى إلهي القرآن كوحين لي من نبي قراه ما يود مان يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين لبدا يضاد سورة البقرة كجرة إلهي وحلي كوة إيمانك لغاها ليو دبتو مركا إذن كنت ما دو واحد كالميستان صبر هي الصلاة بلت المامية إذا ومنفع دنوية ومن مقاصد إنه صلاة دو تكرنا وحا كم دبن لنا مركاسي إنه نولش الدنيا أي نفض يدسه إن عليسكو إن جدجو إن الدنيا دو بروبلم إنه هينين إن وحلالية وحكاهر يما دواي أنا كوجو هينين دمن بيده ملكوت السماوات والأرض ما تكون حرنت عندي قعنتي سكوتشرته أدون كان عرئي الضلبة الله مامولا يكون فيكون وحيس يهي أيات هرتا قنتهي وعند قرى وحو أمراي سعودان وحو الريبان أنا يمنين سيدا أوجد أي النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حذيفة حديث كيسي حسن كها وكل إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام haddii waxbaba warwargeliyaan u fiirso siduu nabigu u fahmay wixii alla faray inaga haddii waxayna warwargeliyaan maxaynu dhahnaa bal tolka u tag bal aw hebel u tag bal taajir hebel u tag marka waxa dhib ku qabsato ama mashkalad ku qabsato waxa koowaad adigu aad ka fakartaa makhluuqaadka u badan yihiin cidii aad leedahay in kugu ag xeeran aad leedahay waxbay qaban kartaa منهي ما هينت بني آدم ككلمة ويديسته لكن وحكم مهم سن إن مركو هري الباب كإلهي جرعدي وحكم مهم سن نلش وحك استاق وقع الصلاة إن حق الربي ولك عديد ولذلك بقى النبي عليه الصلاة والسلام قضية دا أنتو فهمي وهو كل رغمي أيها الصحابي قاسي كورين يا ولي إذا حزبه أمر هدي وحبابه ورور قليان فزع إلى الصلاة حق الصلاة دا أيوه عرر يشري إلا حديث كتغاني أرحنا بها يا بلال أما وكنت المامي قرة عينه نيتي وحيشي سكدوك ستو إذا وحي لنا هاي صلاة دا أجر وكر هذين نوارنب دنبي ما يدا أجر بالغو هلا جنة لغو قلا قيامها مركا لتقوى وحاوه الرجال اسكو حسابه هدي ونكسناتو جنة دا توركك waxaa soo dhan waynu haynaa oo janno iyo aakhira ku saabsan laakiin waxaan ka warramaynaa waa maxay waa manaafic dunawiya waxaan ka warramaynaa waxa weeyaan
cibaadada ma aakhiraynu la sugaynaa mise adduunkay faa'iido leedahay waxa weeyaan adduunkay faa'iido leedahay adduunkay dhaqankaaga bedelaysaa علماء التربية يا علماء السلوك waxay ku takhasuseen oo dhami waa in la bedelo dhaqanka qofka bini aadamka ah hadaad rabto dhaqankaaga inaad bedeshid salaadaadu ha xoogaysato salaadaadu ha qurux badato salaadaadu ha tiro badato salaadaadu tii nabiga ha weekaatay calayhi salaatu wasalaam taasi waxa ay sababaysaa isbedel nololeed inuu dhaco ah waxa laaliyo waxa suluukiyaadkaaga inay wanaag noqon karaan idan waxaan leenahay waa manfac dunawiya intaan manfaca aakhire la gaadhin waxaan leenahay zakadu